kulan ay isugu yimaadeen agaasimayaasha guud ee wasaaradaha Jubbaland, gudoomiye ku-xigeenka degmada Kismaayo iyo dhammaan hay'adaha dawliga ah kaasoo looga hadlayay sidii dib u dejin loogu sameyn lahaa dadkii ka soo barakacay abaarihii ka dhacay Jubbaland. Kulankani ayaa waxaa shir gudoominayay agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta Jubbaland Maxamed Weli Sheekh Cali. Kulankan waxaa looga wada hadlay sidii guryo loogu sameyn lahaa dadkaasi abaaruhu saameeyeen iyo xaqiijinta noocyada amaba naqshadaha lagu dhisi lahaa guryaha deegaanka Luglow. Markii uu soo gabagaboobay kulankaasi ayaa waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta Jubbaland Maxamed Weli Sheekh Cali kana warbixiyay kulankaasi iyo waxyaabihii looga hadlay. Maanta aan qabanayno meeshan ka dhacayay waxa uu ku saabsanaa durable solution waxa la yiraahdo ama xal waara sidii loogu raadin lahaa dadka barakacayaasha iyo dadka ritaaniska la soo celiyay waa master plan-kii ama qorshihii weynaa ee ka wadnay Luglow. Labada qodob marka ugu muhiimsan waxa waaye shelter policy in aan present gareyno anagoo typologies ama qaybo kala duwan oo guryo soo bandhigaynay markii dambana go'aansanay oo rabnay in aan go'aamino ama aan endorse gareyno aan sixino hal type oo ka tirsan taybabka ayada ee guryaha soo bandhignay kaas oo saameyn deegaan aan yeelanayn ama waxa la yiraahdo environmental issues at the same time qiimihii qaaliga ahaa oo high price ka ahaana aan dib uga dhignay oo hoos soo dhignay tan iyo qorshe hawleedka aan Baydhabo ku tagnay isbuucyadii hore aan Kismaayo markaan ku soo laabanay injineerada wasaaradda howlaha guud iyo team farsamo oo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha oo durable solution office-ka ama directorate durable solution-ka ay ku jiraan sidoo kale hay'adaha ay kaabayeen ayaa muddo 10 bari la soo dhaafay ku shaqeynayeen xafiiska wasaaradda howlaha guud ayagoo marka ayada qiimeynayay BOQs ama naqshado cusub oo qiimahooda uu hooseeyo guryo tayo leh ee xal waara loogu raadinayay dadka barakacayaasha. barnaamijkaasi wajigiisa koobaad ayaa maanta meeshan ka furmay waxaan rabnaa tiiman farsamo technocrats oo ka socdo wasaaradaha kala duwan iyo hay'adaha inay maanta endorse gareeyaan. waxaan rajaynaynaa berri in aan ku casuuno wasiirada golaha wasiirada key stakeholders ee barnaamijkan at the same time tomorrow ay endorse gareeyaan ay nala aqbalaan oo nala qaataan kadib waxaan rabnaa inaan u sii gudbino golaha wasiirada si barnaamijka loo ansixiyo ilaa heer baarlamaan. marka kadib waxaan rabnaa in hay'aduhu ay ku qasbanaadaan ama ay qaataan qorshe hawleedkan ama qaabkan dhismo wax xal waare qiimihiisana uu hooseeyo dawladdan hoggaan ay ka tahay at the same time hadda waxa socda master plan-kii oo la joodinayo ama presentationkiisa uu socdo. waxaan rajaynaynaa barnaamijkan dawladda inay nala qaadato ilaa heer wasiiro heer baarlamaan la ansixiyo kadibna uu noqdo sharci hergelay ee ka shaqeeyo state-kan saan rajaynayno ayadoo marka ayada guryo tayo leh laga dhisi doono xal waarana loogu raadin doono dadka barakacayaasha iyo dadka soo noqdayaasha ee ritaaniska la yiraahdo.